وحرمنا إنها ماشان كو حسابينو celcelisahaan warshada wixii maalin walba ay soo saaraysay waxaysana macluumaadkana marka hore isla fiirinaynaa kadibna waxaan xisaabinaynaa celceliskii wixii warshadan soo saartay 2007 xabo oo alaabe ayay sameeyeen laakiin waxay ku qaadatay muddada ayay meeshan noogu sheegeen muddada taariikh ahaan ayay noo siiyeen muddada ay bilaabeen alaabtan inay farsameeyaan waxay noqonaysaa 12 bishii 6aad 2012 waxayna dhameeyeen 19 bishii 9aad 2012 muddo intaas la eg ayay ku qaadatay in warshadan ay soo saarto 2700 oo xabo celceliskeedana waa waxaan raadinayno sida caadiga haddii aan gacan iskaga xisaabi lahayn waxay noqon lahayd 2007 xabo inaan u qaybino inta maalin ay ku qaadatay maalimahan wuxuu noqonayaa markii taariikhan aan fiirisid 9 maalin marka 9 ayaa waxa u qaybinaysaa 2007 waxa meesha soo baxaysa maalin walba celcelis ahaan 30 xabo inay warshadan ay sameeysay markii aan rabnay inaan meeshan formal ahaan ugu diyaarino xogaayar marka meeshaas culays ayaa ka imaanaya waxa loo baahanayaa in taariikhahan aan ka soo saarno maalimaha ay ku qaadatay warshada in ay soo saarto amba ay farsameyso 2007 xabo marka waxaan ku qasbanahay formal yar in aan sameeyno formuladaas oo keeni karta in ay xisaabiso marka hore taariikhda marka hore taariikhda ayaan soo saaraynaa equal ayaan leenahay taariikhda dambe oo ah taariikhdii la joojiyay oo ay dhamaatay farsameynta alaabta ayaan waxaan ka jarayaa taariikhdii la bilaabay oo ah bisha 6aad 2012keeda labaas markaan kala gooyno hore waxa ka soo boodayso 9 barnaamijkan Excelka taariikhaha wuxuu yaqaanaa nambaro marka waxa fududaanaysa in taariikhdii la kala gooyo marka taariikhda dambe waxaan ka jaraynaa taariikhda hore si ay u soo baxdo inta maalin ku qaadatay warshada farsameynta ay ku sameysay alaabtan ay soo saartay oo 2700 meesha waxay noqonaysaa marka in isbedel yar aan ku sameeyno formuladan oo 2700 aan u qaybino 9 marka waxay noqonaysaa equation gadaasheeda ayaan imaanaynaa waxaan leenahay 2700 ayaa waxaan u qaybinaynaa kala gooynta labadan taariikhood meeshan waxa soo baxayso 9 Excelka markii la joogo isku qaybinta iyo kala jaridda nidaamka wuxuu raacaa badmaska loo yaqaano isku qaybinta ayaa waxay ka horeysaa kala jaridda aniga waxaan rabnaa in kala jarideena ay marka hore ay imaado si meeshaas 9 maalin ooga soo baxo xisaabtan aysan u qaldoomin marka meeshaas waxaan gelinayaa intaas bil si oo u kala jaro marka hore oo 9 ah u soo saaro oo labadan taariikhood loo kala gooyo kadibna loo qaybiyo 2700 intaas markii aan sameeyo enter aan taabto hore waxa ka soo baxayso 30 xabo markii celcelisaan maalin walba warshadan waxay sameeysay 30 xabo marka 30 markii lagu dhifto 9 maalinna waxa soo baxayso 2700 oo ah inta ay warshadan ay sameysay 9 kaas maalimood